isla quraacan jirnay habeenkiina waan isla casheyn jirnay waayo waqtiga qadada anigu waxaan ahaa qof shaqada inta badan ku maqan habeen ayaan guriga ciyo imid waxaan diyaariyay waxaan lahaa shirkadan u shaqeynay ayaa shir lahayd waxaan diyaariyay budgetkii la iga rabay waraaqadii ayaan diyaarsaday habeenkii waqti hore ayaan seexday subaxii markaan baxay ayaa waxaan iloobay waraaqadii aan diyaarsaday ama budgetkii aan diyaarsaday ayaan iloobay markaan meesha shaqada tagay 4 saac aan shir leeyahay ayaa waxaan soo xasuustay waraaqadii inaan guriga ugu soo tagay waxaan dhowr mar soo wacay walaalkay oo aan ogaa guriga inuu joogo igama uusan qabanin telefoonka dhowr mar ayaan soo wacay kadib markaan ku daalay walaalkay waxaan isir inuu hurda laga yaabaa xilligaasna waxbarashada fasaxay u ahayd waxaan soo wacay xaaskayga iyadana sidoo kale dhowr mar ayaan wacay labadii telefoon waa liga qaban waayay aniguna shir ayaan leeyahay waxaan ku qasbanaaday inaan anigu soo baxo gaarigayga soo si aan waraaqadaha u soo qaato waan soo baxay xaafadaan imid waxaan iska soo furay albaabkii hore furiisaan haystay guriga markaan soo galay qolkayga jiifka aan soo galayo ayaa waxaan arkay walaalkay oo qolka jiifka ah albaabka soo dhaafayo iyo xaaskayga oo madaxa banaan oo qolkii dhex taagan waxaan ku dhahay sidee wax u jiraan xaaskayga walaalkayga qolkayga jiifka ka soo baxay adiguna madaxaaga wuu banaan yahay maxaa qaldan sidee wax u jiraan ma wax dhibaa jiro waxay igu tiri maya iyadoo naxsan ayaa waxay igu tiri maya daaha iga soo dhacay ayaa waxaan ku iri kaalay daaha ii toosi waayahan ku dhahay xaaskaygii haddii daaha uu ku toosinayo soo ma qurux badnayn in madaxaaga qaawan aad xirato way ii jawaabi weysay xaaskaygana aad ay u naxsaneed walaalkayga albaabka markuu ii dhaafay xataa imuuna salaamin aad ay u naxsanaa markaan waraaqada qaada maagay ayaa waxaan ku arkay sariirtii godasheedii aan qurux badnayn oo waad dareemi kartaa godol ma aragtay la diyaariyay iyo godol laga soo kacay isku mid ma noqon karaan godashii ayaan fiiriyay xaaskaygii oo madaxa qaaban walaalkay oo qolkayga jiifka ii dhaafay oo islaami waayay aad baan u shak haddaan fiiriyo godashii oo qoyan ayaan arkay xaaskaygii waxaan ku dhahay maxaa qaldan tintaada way banaan tahay walaalkay waa ii gudbay godashaan ma aha golol qurux badan godol laga soo kacay oo egtahay wayna qoyan tahay xaaskayga maxay ka qoyan tahay intaa markaan dhahay oo qoyaankiina aan tusay xaaskayga waxaa ka soo daatay dhidid oo aan dareemi karay wax walba meeshaas ka dhacay waan naxay runtii aad baan u murgay marna ma aana filaynin walaalkay xaaskayga iyo godasha aad baan runtii u murugooday waxaan qaatay waraaqadii waan baxay qolkii walaalkii ayaan ugu tabatay walaalaan ku dhahay baadiyaha waxaan kaaga keenay inaad nolol suubsato in ma aragtay heer aad gaarto walaalkay ma godashaydii ayaa dib ugu noqotay tan waa xaaskayga waxaan kaaga dhigay hooyada aniga miyaa igu soo noqotay walaalkaygiyo jawaab imuuna siinin aad ayuu u naxsanaa waan dareemi karay wax walboo dhacay waan baxay baabuurkaygii ayaan qaatay anigoo isla hadlayo oo yaaban oo aan aamini waayey xaaskaygii aan aaminsanaa aan ku kalsoonaa jacaylka aan ku guursaday wax walba oo dumar loo suubiyo waan u suubiyey iyo walaalkay aabbahay iyo hooyaday iyo dhaleen kaga shakinaynin xaaskayga iyo waxaan godasho ku arkay ayaan aamini waayey waan coodo bilaystay waan isdejiyey waxaan ku dhahay wax walba oo ilaahay qoro wax walba oo ilaahay siduu ugu talagalay ayay u dhacaan isdeji kani maanta dhacay waa qadar ilaahay uu qoray wax walbana waxba kama qaban kartid adigu isdeji maskaxdaada deji waan baxay shirkii ayaan ka qayb galay anigoo garanaynin xaaladayda shirkii ayaa dhammaaday galabkii 10 saac ayaan soo baxay waxaan wacay adeerkii magaalada i keenay ee anigu heerka aan gaaray maanta ilaahay ka sukow sababteeda lahaa ayaan wacay adeeraan ku dhahay arin ayaa jirto waxaa tahay adeerkay marna aabbahay waxaan rabaa inaan adinkaala tashto adeerkii waayahayo igu dhahay adeer ani ayaa kulannay adeer ayaa arintu sheegay adeeran ku dhahay walaal aniga aan keenay wadadii shalay adi marisay oo inaan mariyo aan jeclaa maantay guriga ayaan ku noqday oo waraaqada aan ka soo iloobay aabe xaaskaygii iyo walaalkay oo maantay godashii aniga wixii la igu talagalay ku suubiyey ayaan tagay ka waran adeerkay fadhiga uu fadhiyey uu ka istaagay wuxuu ku dhahay wiilkaygii ma tihid wiil aan kaga bartay been ma tihid wiil aan ku aqaanay inuu dad nabo sidee wuxuu jiraan si tartiib igu sheeg waxaan ku dhahay shir ayaan lahaa maantay waraaqadihii aan diyaarsaday ayaan xaafadda ugu tagay waxaan dhowr mar soo wacay walaal uu iga qaban waayay
xaaskayga ayaan wacay way iga qaban weysay maxaa iga qabtaan waa laba telefoonkii meel ugu tagay oo iika isku maqan anigu i qiyaanayo haddaan gurigii imidne qolkayga jiifka ayuu ii soo dhaafay walaalkay xaaskaygana way madax qaawaneed waxaan ku yiri sidee waxa jiraan waxay tiri daa ayuu ii toosinay waxaan ku dhahay madaxaaga qaaban muxuu yahay way ii jawaabi weysay godashii haddaan fiiriyane godashii waxay ahayd mid jamaaca lagu suubiyey oo maartay godolaha fu ka dhacay adeer uu naxay wuxuu yiri wallaahi yaan ku dhaarsay qoortan ka goon